Soomaaliya markii lagu sameyn jiray mawliidka qaabkii loo sameyn jiray waa ka gadisan yahay Kenya iyo Coast marka tagto qaabka loo sameeyo halka markii laga yimid oo meesha la yimid waxa loo yimid rekostiga iyo kiis muslimiinta Kenya oo u sameynaya mawliidka jidka la maro inta la soo baxo oo boorar la qaato oo durbaano la qaato oo rag iyo dumar la isku dhex siidaayo jidka in la maro oo durbaanka la garaaco waxa loogu yimid halkan qoladii xagga ka timid ee waxoogaagodu ka gadisnaa ma aynan dhihin war waxani waa inugu cusub yahay waa la urursaday maalinba waxba lagu darahayaa qayb lagu siyaadinayaa ilaa ay noqoto murakkab min albid'a tarkiibaad ajiib ah ilaa ay soo baxdo laana wax way ruuxa haduusan diintiisu xad lahayn xarig xidhana uusan jirin maalinba wuxuu jeclaaduu ku soo darsadaa wax ka celinaya ilaa ma jireen khaladaadka ku jira waxa kamid ah waayahan dambe aad loo soo galiyay ilaahi tabaaraka wa taala quraankiisa iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa shaygii haduu yimid oo lagu dhaqmayo diin laga dhigtay markii la isweydiiyo leeyahay war maxaa daliil u ah waa in quraanka iyo sunnada inta la qunci baaro meeshii ilaahay ugu talagalay meel aan ahayn loo leexiyo loo sameeyo aayado quraan iyo axaadiis ku tusaya mawliidka warday markii quraanku degay ama sunnadu degaysay maba jirin mawliide ma wax way aayada jira aayadihii quraanka iyo sunnadii baabkan kama hadlin mana sheegin mana jidaynin marka waa in inta la soo qabto luqunta meeshii la rabay loo jeediyo macna aan macnihi saxda in loo sameeyo waagii hore waxa laga doodi jiro wadaadadu ka doodi jireen sax mawliidku waa bidco way qiri jireen mawliidku waa bidco waa qirsanna laakiin waa bidco wanaagsan doodu waxay ahaan jirtay ma wanaagsantaa mise way xuntahay laakiin bidcanimo la islama diidi jirin hada laakiin waxa batiyid ba quraanka laga helay mawliidkii kaaf iyo kala dheeri way quraankii ba mawliidkii laga helay oo xagee laga helay qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un Allah fadligiisa iyo naxariistiisa ha ku farxeen dadka muuminiintii taasa ka khayr badan oo ka wanaagsan adduunyada aad ururinaysaan naxariista waxa laga wadaa bay dhaheen mawliidka yaa idinka horeeyo ku fasiray uma baahnin bay dhaheen cid naga horeyso ku fasirta annaga fasirayna طيب تفاسيرتي سلفك u noqo saxaabadii u noqo taabiciintii u noqo hatta mutaakhirintii dambeysay culimada tafsiirka u laabo hal tafsiir oo aayada ku fasiraya mawliidka ku fasiraya soo helimaysa حتى كل القرآن علماء ما أنت تشوق أي قرآن كل كالسكرات هل تفسير أو برحمة مولد كفسر يسوع المس وغريب ورحك يدو عنك كنتين ما يوحوي نحريست مولد كهلو فرحة وأصحاب الرسول الله كوين فرح المياه صدق حديث قرن مين كفر المياه أيضا معناه هذا مين قرن المياه شيء عجيب أول أيضا القرآن كويس فسر إياه آيات كهر ريسيبا سياق سوى ديو يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قرآن كيسيدي اللغة سوى الرمي وحليلي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فضلك الله يا نحريستي سكفرحة وقرآنك يا إسلامك يا هنونك الله وعلا آية ذهر كتسيه آية ذكر القرآن كم يذنوا ويكتسين فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون آية ذهر القرآن كمؤمنين تكفرحة قرآنكم معها صوت المامي لكن موليد كفر حبي آيات كتسي والرمي حق لك كان الأضيق أن عادي أحيوه وعكم ذا نصوص تلقوا عياري نبي أحاديث صلوات ربي والسلام عليه حديثك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم مركي لو يدي مالنت سنين تصون كذا وحو النبي صلى الله عليه وسلم ومالنكي لا يدلي وانا مالنكي وحي اللي يسود شيء ومالنكي لا يدلي وحي لهذين عدي أبوه الرئيسي أو موليدك أو احتفاشة نبي محمد بوها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نبي محمد باحتفال المولد أبوه الرئيسي سميه هذا العرصوة نبي قصون ميوتشي
mise isu imaad iyo durbaan la garaaco iyo mudaaharaad iyo jidad la maro iyo rag iyo dumar isku dhex siidaysan iyo raashiin la cunahayo la dhergayo war soomuu yidhi nebigu sal alay wasalam nebigu waa soomay idinkuna waxbaad cunaysaan daliilkiina waa u daliishanaysaan kaaf iyo kala dheeri sooma kaaf iyo kala dheeri wey cagsi wey ruux sooman iyo ruux raashiin cunaya cagsi bay isu yihin daliilkii nebigu uu yidhi sooma baa intaan daliishanaan u daliishanaynaa cunto cuna waxyaalaha ugu cajiibsan waay laakiin waa saan sheegayno wax walba adigu filo ruux mar hadduusan alla ka cabsi ku jirin oo bidcadu la fogaato oo ay durkiso wax walba ka filo